guddoonka golaha shacabka oo shaaciyay in xildhibaanada laga soo doortay Ceelwaaq ay yihiin kuwa sharci ahaan ku matalaya gobolka Gedo. qoraal ka soo baxay guddoonka ayaa lagu yiri 16 xildhibaan ee lagu doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo iyo 16 xildhibaan oo sheeganaya in lagu doortay degmada Garbahaar ee gobolka Gedo markuu arkay guddoonka in aan sharci ahayn in gobolka Gedo ka soo baxaan 32 xildhibaan markuu arkay guddoonka in xildhibaanada laga soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ay habraaca doorashada mariyeen guddiga hirgelinta doorashada daban ee heer federaal isla markaana ay doorashadu qabteen guddiga hirgelinta doorashada daban ee heer dowlad markuu arkay guddoonka in xildhibaanada sheeganaya in lagu soo doortay degmada Garbahaar aanaysan shahaadadii guddiga hirgelinta doorashada daban ee heer federaal isla markaana aana doorashadooda qaban guddiga hirgelinta doorashada dadban ee heer dowlad markuu arkay guddoonku buuqa hariyay golaha shacabka fadhigiisa oo sabab u ahayd 32 xildhibaan ee gobolka Gedo markuu arkay guddoonka in go'aankii uu ku aqoonsaday guddoomiyihii ku meel gaarka ah xildhibaan Ambassador Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan Dhabancad xildhibaanadii lagu soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo markuu arkay guddoonka go'aankii uu ku aqoonsaday guddoomiyihii ku meel gaarka ah xildhibaan Ambassador Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan Dhabancad xildhibaanadii laga soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo xildhibaanadan oo la dhaariyay isla markaana habraacooda loo dhameystiray si waafaqsan go'aankii guddoomiyaha ku meel gaarka ah xildhibaan Ambassador Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan Dhabancad markuu arkay guddoonka iyada oo la raacayo xaqa dastuurka ku meel gaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu siiyay muwaadinka Soomaaliga inay codkooda iyo matalaad ku yeeshaan muwaadiniinta gobolka Gedo si lamid ah muwaadiniinta ku nool gobollada kale ee dalka. guddoonka goluhu waxa uu isla gartay in xildhibaanada laga soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ay yihiin kuwa sharci ahaan ku matalaya gobolka Gedo baarlamaanka 10aad maadaama madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu furay doorashadooda habraaca doorashadooda ay qabteen guddiga hirgelinta doorashada dadban ee heer dowlad goboleed shahaadada rasmiga ee xildhibaanadana ay siiyeen guddiga hirgelinta doorashada dadban ee heer federaal uuna taageeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ah madaxa doorashada dadban ee 2022 sidaas darteedna ayna jirin meel lagu duro habraaca xildhibaanada laga soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. guddoonku waxa uu ku talinayaa dadka walaalaha ee gobolka Gedo ee xurgufta siyaasadeed soo kala dhex gashay in ay khilaafkooda wada hadal ku dhameeyaan maadaama ay doorashadoodii dhamaatay. Haajir Abduqaadir, RTN TV, Muqdisho.